السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشوينتي الصوماليات ووضع السلامة إن شاء الله تعالى وحيصدني إن شاء الله تعالى أن كبرنيني habdhiska aadanaha iyo shaqooyinka jirka insha allahu tacaala waxaan ku guda jirnay habdhiska lafaha aadanaha insha allahu tacaala waxaan horey usoo qaadanay ilaa 3 qeybood anagoo lafaha kaga soo hadalnay qeybta saddexaad oo lafaha ayaanu maraynaa insha allahu tacaala halkaanu ka bilaabaynaa cashirkan wuxuu noqonayaa cashirkii 7 biidni illaahi tacaala aan soo jeedinayni insha allahu tacaala mahad ha ka gaarta allah subxaanahu watacaala ayaa mahadda ugu horeyda iska leh insha allahu tacaala noo suurageliyey inaan halkan kasoo gudbino mahad celinta alle kadib waxaan u mahad celinayna insha allahu tacaala sixa diagnose and pharmacy u taagan mar walba u adeegada bulshada soomaaliyeed insha allahu tacaala ayagoo suurageliyey maamulka iyo shaqaalaha sixa diagnose and pharmacy insha allahu tacaala aad baan ugu mahad celinayna bacdallahi subxaanahu watacaala sidoo kale waxaan kale u mahad celinayna bulshada soomaaliyeed oo codsiyo kala duwan soo dhiibtay insha allahu tacaala maadadan in loo bilaabo ay tahay haddana ay la dhacsan yihiin biidni illaahi tacaala ayagana aad baan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa qof kasta inuu ka faa-iideysan doono maanta waxaan idiin haynaa insha allahu tacaala inaan kaga hadalno lafaha qeybihii agsiyaalka inaan maanta soo gebagabeyn insha allahu tacaala cidiinii xasuusata lafaha waxaan usoo kala qaadnay location ahaan meelaha ku kala yaala marka loo kala qaadayo axial iyo appendicular qeybaha axialka waxaan kusoo sheegnay qeybaha dibadda jira dibadda oo ka baxsan ay tahay oo qeybaha gudaha sida madaxa feeraha iyo lafdhabarta ayaan kusoo sheegnay insha allahu tacaala annagoo xiisado hore kusoo bixinay madaxa qaabka u subsan yahay iyo wejiga iyo tilmooyinka ku jira insha allahu tacaala maanta waxaan qaadan doonaa insha allahu tacaala feeraha iyo lafdhabarta inaan israacayna insha allahu tacaala sidaasna aan maanta kusoo gebagabayno wax loo yaqaano agsiyaalka insha allahu tacaala waayahay waxaan ka bilaabeynaa insha allahu tacaala feeraha ayaan ka bilaabeynaa feeraha markaan ka hadlayno waxay ka kooban yihiin 24 lafood ayay ka kooban yihiin insha allahu tacaala lafaha thorac boniska marka laisku dhaxatay lafdhabartay ku dareen laakiin qeybaha ribiska un baan ka qaadanaynaa feeraha 24 ayay ka kooban yihiin insha allahu tacaala sidoo kale qeybaha thoraciska markaan ka hadlayno hal sternum ayaa jiro ama lafsakaar wax loo yaqaano insha allahu tacaala iyo vertebral column ama xiriirisada insha allahu tacaala ayadana 33 lafood ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala feeraha aan gudaha u galno insha allahu tacaala ayuu 24 ka kooban feeraha waxaa loo kala qaadaa lafaha feeraha ilaa 3 qeybood ayaan u kala qaadaynaa 3 qeybood qeyb waxaa loo yaqaanaa feeraha runta ah feeraha runta waxaa loogu bixiyey lafdhabarta ayay kasoo kacaan waxay si toos ah ay ugu xirmaan laftan loo yaqaano lafsakaarta ah oo qofka kasoo horeysa insha allahu tacaala kalaxanta ku xiran laftan oo hoos usii jeeda ilaa iyo bagees ku xirta insha allahu tacaala lafsakaarta ay dhahaan soomaalidu ayagana waxay ka kooban yihiin waa 14 lafood maadaama aan kusoo sheegnay 24 lafood 14 baa hadeer ka jaraynaa 14 markaan ka jarno 20 waxaa noo soo haraya 10 lafood insha allahu tacaala 14 lafood feeraha runta ayaa la yiraahdaa waxay kasoo kacaan lafdhabarta toosna waxay ugu tiirsadaan ama u qabsadaan wax loo yaqaano lafsakaarta ama laftan u egsida seefta oo kale insha allahu tacaala ay feeraha dadka hortooda ay ku taalo insha allahu tacaala sidoo kale qeybta labaad waxaan dhahaynaa feeraha u kala qaadayno feeraha oo beenta ah ayaa la yiraahdaa been waxaa lagu bixiyay wax kale ma ahan feerahan oo false ribiska markaan ka hadlayno waxay kasoo kacaan lafdhabartay kasoo kacaan si toosa uguma xirmaan lafsakaarta waayo waxaa u dhexeeya carjaw ayaa ku xirayo carjawgaas markay isku tagaan ayuu lafsakaarta kula xiraya insha allahu tacaala maadaama sidaas si toosa aysan u qabsanaynin lafsakaarta waxaa loo bixiyey feeraha beenta ayaa loo bixiyey ayagana waxay ka kooban yihiin ilaa 6 lafood kuwii hore 14 bay ahaayeen 14ka qeybta midig waxay noqonaysaa 7 qeybta bidixdan waxay noqonaysaa 7 kale 14 waaye
qaybtaana waxa waaye 6 lafood baan ku sheegnay. 6da lafoodna waxay tahay 3na qaybta midigta waaye, 3na waa qaybta bidixda insha Allah taala. sida aan wada socono saas waxaan ku haysanaa 20 lafood. waxaa noo soo haray 4 lafood ayaa noo soo hartay insha Allah taala. kuwan waxaa loo yaqaanaa feeraha dabaasha ayaa loo yaqaanaa. feeraha dabaasha ama floating rabiska markaan ka hadlayno waxay ka kooban yihiin ilaa 4 lafood waaye, kuwaasoo laf dhabarta ay kasoo kacayaan, laakiin meel ay qabsadaan lama hayo. laf dhabarta intay kasoo kacaan ayay keliyaha iyo meelahaas difaaci waxbay siiyaan insha Allah taala, keliyaha inoo difaacaan. maadaama feeraha intaas aan ugu baxnay 3 qaybood aan u kala qaadnay, haddaad xasuusato feeraha runta 14 aan ku sheegnay, feeraha beenta iyo aan ku sheegnay 6 lafood, 4 lafoodna aan ku sheegnay feeraha dabaasha insha Allah taala. dabaasha wax loogu bixin wax kale ma ahan, laf dhabarta ay ku xiran yihiin, balse meel kale ay kusoo xirmaan lama arko. sternum ama laf sakaarta markaan ka hadlayna ayadana sidoo kale waxay u dhaxaysaa feeraha bidixda ka imaada iyo kuwa midig ka imaada ayay u dhaxaysaa, meelaha ay ku tiirsadaan waaye insha Allah taala. waana lafta aday ka horeyso oo labada naas ay u dhaxayso insha Allah taala, sida ina ula socotaan insha Allah taala. laftaas ayaa loo yaqaanaa. waxaan gelaynaa insha Allah taala vertebral column insha Allah taala. vertebral column markaan ka hadlayno lafaha aadanaha dhammaantooda waxay yihiin kuwa protection noo sameeya ama qaawishana noo sameeya. sidoo kale waxay difaacaan oo protection ay u yihiin xubnaha muhiimka ah. feeraha markaan ka hadlaynay waxay noo difaacayeen sambabada, wadnaha iyo waxyaabaha lamidka insha Allah taala, maadaama meesha halbowlayaal tiro badan ay ku jiraan insha Allah taala, waana xubno muhiim ah. sidoo kale vertebralka difaacaas midan oo sternumka ay difaacaas ay ka qayb qaadanaysay, maadaama labada qaybood feeraha isku xiraysay. ayadana sidoo kale waxay protection siinaysaa xubnaha aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo kasii badan insha Allah taala. markaan ka hadlayno xiriirisada ama laf dhabarta aan ka hadlayno ayadana sidoo kale protection waxay siisaa xangulaha spinal cordka ay macnaha qayb ka mid ah dareen wadayaasha insha Allah taala. ayadana toos baan uga hadli doonaa qaybaha macnaha dareen wadayaasha uga hadlayno ay protection ama difaacid siinaysa insha Allah taala. sidoo kale taageerid ayay sameynaysaa, waxay taageeraysaa culayska madaxa ayay kor u haydaa laf dhabarta. sidoo kale waxay isku xirtaa adimada sare iyo adimada hoose insha Allah taala. sida sawirka idinka muuqatana madaxan kore waa ujeediin in macnaha laf dhabartan ay ku dhagan tahay insha Allah taala, adimada hoose iyo adimada sare isku xiraysa insha Allah taala. lafahan waxay ka kooban yihiin ilaa iyo 33 lafood ayaa la sheegaa insha Allah taala, kuwaasoo loo yaqaano xiriirisada ama vertebral column ayaa loo yaqaano insha Allah taala. waayahay laf dhabartu markaan ka hadlayno ilaa iyo waxaa loo kala qaadaa sida la sheegayo ilaa iyo 5 ayaa loo kala qaadaa. 7 sare ee madaxa ka hooseeya insha Allah taala oo qoorta loo yaqaano waa 7 lafood baa ku jirta. 7 lafoodna waxaa loo yaqaanaa cervical ayaa loo yaqaanaa, ama sidoo kale atlasna waa la dhahaa insha Allah taala. waa 7 lafood qeybaha qoorta ku jira. sidoo kale waxaa kaloo jira 12 lafood oo ayagana sidoo kale feeraha thoracic bones ayaa la dhahaa, feeraha meesha kasoo kacayeen ah. feerahana waa 22 lafood 24 lafood baan ku sheegnay insha Allah taala. 12 lafood markaan ka hadlayno feer walba bidix iyo midig ku kala baxaysay, maadaama vertebral columnka ay hal qayb ay ahayd. qaybteeda midigtuna waxaa qabsanaya feeraha midig, qaybteeda bidixdana waxaa qabsanaya feeraha bidix insha Allah taala. 12 laba hadaad ku dhufatana 24 waaye. marka insha Allah taala 24 feerood saas bay ku noqdeen. thoracic bones saas waaye. lumbar boneska ayaa jiro, ayagana 5 lafood ay ka kooban yihiin, waa qaybaha feeraha ka hoose insha Allah taala, kuwaasoo aan gaarsiisnayn qaybaha miskaha. kuwaana 5 lafood insha Allah taala waa qaybaha dhexe. sacrum boneska ama macnaha qaybtan sacrumka waa 5 lafood, waxay ka hooseeyaan lumbarika, waxay galaan qaybtan miskaha galaan insha Allah taala ilaa iyo 5 lafood waa insha Allah taala. waana isku dhalaalsan yihiin inta badan. coccygis boneska ayaa jira, ayagana sidoo kale waa 3 lafood, marmar 3 ilaa iyo 4 lafood la isku dhalaali ay noqdaan qaybta dibka lagu fariisto insha Allah taala. intaas ayaan ugu baxaynaa laf dhabarta iyo waxyaabaha ku tacalluqa iyo qaybihii axialka insha Allah taala. xiisadan midda xigta waxaan qaadan doonaa wax loo yaqaano
appendicular insha allahu tacaala. idinkuna waad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socoshaha insha allahu tacaala. barnaamijkan aad baa idiin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.